madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa xariga ka jaray dhismaha cusub ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka koonfur galbeed Soomaaliya taasi oo laga hirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. xarig jarka xarunta cusub waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed, madax ka socota hay'adda IOM iyo mas'uuliyiin kale. xarig jar kadib madaxweynaha ayaa kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay xaruntan cusub, waxaana uu sheegay in tani ay tahay mid muujinaysa horumarada koonfur galbeed Soomaaliya. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed Soomaaliya Iimaan Cali Abdi ayaa u mahadceliyay madaxweynaha koonfur galbeed ka soo qaybgalka xarig jarta xaruntiisa. salaan kadib waqti badan madaxweynaha yani lijari meel badan marnay Marwo Fawziyo Maxamed Sheekh oo ah wasiirada tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda ka hadashay goobta xarig jarka. mahad kadib waxaan rajaynayaa madaxweynahana waa u sheegay anoo faanyar ku daraayo wasaaradda inay u fiicnaato waa u sheegay madaxweynaha oo biyo iyo maxaa la dhihi jiray biyo iyo koronto inaa ka dharga doontiin hadduu ilaahay yiraahdo wasiirkii aniga wada shaqayn fiicanaa naga dhaxayso waxaan rajaynayaa haddaa idinkana nala shaqaysiin ilaahay idinkiisi rajadaan leenahay iyo waxa aan rabno inaan gaari doono hadduu ilaahay yiraahdo waa ku soo naqatay koonfur galbeed biyo la'aan korontadii oo qaali ah waxaan rajaynayaa laakiin shaqo oo culusaan gelinay waana sii shaqayn doonaa si fiican aan shaqo adag u gelin doonaa in waqti dhow gabagabadii madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa u mahadceliyay cid walba oo kaalin ka geysatay dhisidda xaruntan cusub, waxaana uu sheegay in wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha inay tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee bulshada. ismaheedina la dhameeyay gaadiidna lagu wareejiyay waxaan uga mahadcelinaynaa cid allaali ciddii gacan ka geysatay oo ugu horreysay dowladda federaalka oo ay ku xigto African Development Bank oo ciddii fulisay oo muhiimadaas sida goonida isaga xilsaartay oo IOM ay ka mid tahay intaba waa u mahadcelinaynaa shaqadan fiican ay qabteen baahi taagneeyda loo baahnaa yahay aad iyo aad u mahadsan yihiin saddexdaba waa u mahadcelinaynaa wasaaradda biyaha koonfur galbeedna waa mahadsan yihiin in ay shaqooyinkii loo baahnaa ay fududeeyaan aad ugu mahadsan yihiin aniga runtii waxay ii tahay sharaf gooni ah wasaaradda biyaha iyo korontada inkastoo aan wasaarado badan ka soo shaqeeyay aan wasiir ka soo noqday laakiin wasaaradda biyaha iyo korontada markii aan ka tagayay markaan inta imaanayay madaxweynenimada waxaan ahaa wasiirka biyaha iyo korontada marka wasaaradii ugu dambeysay shaqadeeda waaye tiimka aan ka shaqeynayna yaa joogo marka waxaa agaasimihii iyo la taliyihii markaan arko xasuus gooni ah ii samaynaysaa sababtoo waa shaqo aan qabto shaqadan intaan soo aaday shaqo aan qabto shaqada igu dambeysay ahayd waxaan ku kalsoonahay markii aan joogay tiimkii ka shaqeynayay sida u shaqeynayay waxaan ku kalsoonahay wasiiradda oo haddana wasiirka ka noqotay inay shaqada meeshii aan geynay ka fiican ay geyn doonto oo nooga fiican tahay shaqadaas insha Allah wasaaradda guul baan u rajaynaynaa wasiiradda aad ay u mahadsan tahay ayadana horumarka iyo ay guud ahaan dowladda Soomaaliya u hayso ku mahadsan tahay oo wasaaradda rajada ugu badan oo maanta koonfur galbeed ay leedahay waa wasaaradda biyaha iyo energy-ga waxaan baahidaanada waa biyo la'aan iyo koronto la'aan nolosha bini'aadankay ka mid noqotay amnigay ka mid tahay dhaqaalahay ka mid tahay kordhinta dhaqaalaha amniga Shukri Ismail Ahmed RTN TV Baydhabo.